shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xaaladda dalka ha noqoto dhinaca siyaasadda, amniga, arrimaha bulshada iyo wixii lamid ah. Marka sida aad la socotiin beryahan annaga waxaan ku jirnay wada hadallo aan kula jirnay dowladda, waxaan ku gudbinaynay talooyin aan aaminsannahay inay dhaxalgal yihiin. talooyinkaas sooma bilaabanin, marxaladdii hadda la soo dhaafay waa kasii horreeyeen sanad iyo dheeraad. kuwana waxaan u sheegaynay, waxaan marinaynay miidiyaha, kuwana marka fursad la helay waxaan u gudbinaynay toos. ujeeddaduna wax kale ma aha inaan wax hagaajino oo wax toosino, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan maanta waxay sugayaan dowlad Soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin oo xaqiijisa himilooyinka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. waxaan wada ognahay geedi socodka nabadda ama geedi socodka dowladnimada ee dambe kasoo bilowday, carta kasoo bilowday ee soo maray Mbagathi, Jabuuti, mar kale wuxuu ku socday oo soo gaaray meel la yiraahdo 4 sanaba doorasho la isku waafaqsan yahay hal qabto. arrintaas waa arrin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba kalsooni gelinaysa, isla markaasna muujinaysa in dadka Soomaaliyeed ay u bislaadaan ama u bislaadeen hanaanka doorashooyinka inay ka heshiiyaan doorasho la wada ogol yahay oo natiijadeeda la wada aqbalayo inay ka timaado meeshaas. arrintaas marka waxaa ku yimiday jihawareer. jihawareerkaas waxaa asaas u ahay wax ka beddelka dastuurka oo aan loo marin hanaan saxa. sidaad ogtihiin dastuurka habka wax looga beddelaayo cutubka 15 qoraay. arrintaas waa la baalmaray. dastuurka waxaa loo sameeyey hab ku dhisan rabitaan iyo damac shakhsi ah. sidaad ogtihiin bulshada Soomaaliyeed waxa isku haya waa dastuurka. dastuurku waana heshiis bulshadeed oo ummad ay ku heshiisay oo ay ku xisaabtanto dowladnimadeeda ay ku dhisato, oo maalinba la rabo haddii wax laga bedelaa iyadoo heshiis lagu yahay intilaab la qaado. dastuurka hadda hagaayay doorashooyinka la soo dhaafay oo ilaa haddana taagan waa dastuurkii 2012. dastuurkaas wuxuu ahay dastuur ku yimid wada hadal iyo heshiis u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed. inuu fiican yahay inuu xun yahay waa wax kale, laakiin waxa muhiimka waxa waaye waxa heshiiska lagu yahay. wax ka beddelkiisana waxaan dhahnay isla asagaa sheegaya in wax laga bedelo in la dhammaystiro waa arrin xukuumadda u taalla, sax waaye. laakiin xukuumaddu ma waxay ka samaynaysaa maskaxdeeda mase waxay raacaysaa nidaamka dastuurka ku qoran? waxay raacaysaa nidaamka dastuurka ku qoran. wax ka beddelka marka wuxuu keenay in aan heshiis lagu ahayn, waxa hadda jira doorasho lagu geli karin, dalka oo ku qaybsamo ayay keentay. annaga marka intaas waxaa noola sii jirtay wax ka beddelka dastuurka iyo sida ay wax u socdaan oo aan waafaqsanayn cutubka 15aad waxay keenaysaa khilaaf. khilaafkaasuna wuxuu saameyn ku yeelanayaa arrimaha amniga, wuxuu saameyn ku yeelanayaa arrimaha wada socodka dalka. maxaa yeelay hanaanka dalka hadda oo siyaasiga ah waa hanaan federaal ah. hanaanka federaalkana wuxuu ku dhisan yahay wada tashi. waxaad ogtiin Soomaalidu hore ugu soo gubteen yani nidaamka oo centerka oo asagu meerinaya talooyinka iyo arrimaha siyaasadda. marka hanaanka ay ku soo heshiiyeen waa hanaan mataqaanaa la yiraahdo hanaanka federaalka oo dowlad goboleedyaduna ay leeyihiin waajibaad iyo maxaan ku yiraahdaa xuquuq ay leeyihiin, dowladda dhexana xuquuq iyo waajibaad ay leedahay. inkastoo aan la dhammaystirin oo processka aan ku jirno oo weli nidaam federaal oo la yaqaano oo standard aan uusan jirin, laakiin haddana waxaa jira wax dastuurka ku xusan oo heshiis lagu yahay. haddii ay dhacdo marka dowladda federaalka inay si kaligeed ah ay wax uga bedesho dastuurka, waxaa imaanaysa kala furasho inay kala furtaan dowladaha federaalka iyo dowladda federaalka. taas waxay horseedaysaa dalkan jincan oo ka soo kabanaya maxaan ku yiraahdaa dagaalada sokeeye iyo dowladnimadu aan baahin in ay dadka kala durgaan. waxay fursad siinaysaa cadowga Soomaalida ugu horeeyaan argagixisada. waana wada aragtiin magaalada Muqdisho aan misaal rabaa inaan u soo qaato, waa caasimadii Soomaaliyeed. dastuurka waxaa noogu qoran in ay leedahay maqaamkaasna waxaa la rabaa in uu xadido baarlamaanka, maadaama baarlamaanka uu yahay hay'ad Soomaaliyeed oo Soomaalida ka wada dhaxaysa. baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay asagu inuu xadido.
dastuurka marka wax laga bedelayay marka la soo gaaray cutub uu ku jiro kan waa laga booda ama gadaal loo celiyay maxaa loo yeelay arrimo siyaasadeed marka magaaladii oo aan lahayn maqaam in la yiraahdo doorasho laga qabanaya oo doorashadiina ay ka muuqanayso ceebo fara badan oo kow ay ka tahay wax aad wada ogtihiin dadka Soomaaliyeed ay wada ogyihiin oo hadda loo bixiyo qof iyo qore runtii aad uga xumahay magacaas magac fiican ma aha laakiin waa aragtay waxay keenaysaa dadku doorashada inay nacaan waxaan ka caranaynay qofka Soomaaliga in la khasbo xorriyadiisa la qaado qofkii baabuur saaran in la soo dejiyo oo la yiraahdo soo dago ma soconaysid ma gudbaysid ilaa warqadda ama taqaana doorashada ka qaadato taas waxay ka soo horjeedaa isla dastuurka oo tilmaamaya xorriyaadka iyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed in aan la khasbi karin ama aan la qaadi karin oo arrin fiican aan ahayn marka taas maxayna gaarsiisay doorasho ku dhisan handadaad waxaan la soconaa hay'adaha dawladda shaqaalaha dawladda waa la khasbaa waxaa la yiraahdaa taga dadka shacabka ee musaafirka ah kuwa magaalada jooga waa la khasbaa baabuurta laga dejiyaa ayadoo loo adeegsanayo qori shaqaalaha masaakiinta ee shaqeeya shaqadooda loogu tagaa waa laga soo khasbaa xooga lagu qoraa arrimahaas siday u socdeen waxay keeneen in dad ku dhinto sida wada ogtihiin oo arrin aad iyo aad lagu xumaado isla arrinta doorashooyinka magaalada waxaa barbar socda barakicin sida wada ogtihiin dhulka ugu badan ee magaalada Muqdisho waxaa iska leh dawladda iska leh xukuumaddu inay ku dhiirato si aan loo aaba yeelin dhulka inay u ubiso oo waliba sharciga baalmarsan oo aan la aqoonin meesha lacagtu aadayso oo aan la aqoonin sida ma taqana cidda qadanaysa aan la aqoonin oo ay tahay cidda aan rabo ayaan siinaya arrintaasuna waxay abuurtay dhowr shay oo dalka dhibaato ku ah kow dad dhalinyaro oo sameeyay lacag malaayiin oo laga yaabo lacagtaas bari inay u isticmaalaan dawladnimada inay ku hor istaagaan xal waa dhalinyaro lacag heshay labo dad badan inay barakacaan dadka barakacay waxa ugu badan ciidamada dawladda oo dagaalka kula jira al-shabaab amniga sugaaya ayaa dadka ugu horeeyay oo ku saamooba naqdo arrintaas waxay keentay askarigii inuu ka mashquulo waajibaadkii loo xil saaro oo ka shaqeynaa oo ku mashquulo reerkiisa sida uu maalay lahay marka lagu sii daro arrintaas dadku waxa ay wada leeyihiin oo dawladnimada ah iyo dhulka cidna kuma takrifali karto marka in loo si bareer ah oo aan xishood lahayn in dhulkiina loo iibiyo barakac uu dhaco markii ugu dambeysana dhiig daato waxaan u malaynaa maalin masala laba maalin ka hor wixii ka dhaca waa arkaysa maalmihii ugu dambeeyana culayskaas waa sii badanaya intaas waxaa sii dheer dhulka dawladda wuxuu isugu jiraa dhul istaraatiiji ah oo amni ahaan loo xadiday inay ciidamo joogaan ama military ha noqdaan ama boolis ama maxaan ku ilaahdaa nabad sugid iyo wuxuu isugu jiraa dhul loogu talagalay adeeg kale sida caafimaadka waxbarashada looma aabayeelo intaas waxaa sii dheer hanaanka dhul iibinta ayadana loo maray waxaad ogtihiin dhul marka la iibinayo dawladda horta waa inay dhabtaa inay ka maaranto wasaaraddii ama hay-addii khusaysay waa in ay caddayso inay ka maarantay soo celisay kadibna cidda gadanaysa naado la og yahay oo waqti soconaysa la sugaayo ay wax ku gadato arrintaas ma dhacdo marka dawladda hadday example u noqoto boobka hantida arrintaas waxay taabanaysaa moralka dadka ayay taabanaysaa maxaa yeelay dalkan wax la rabo inay ka dhacaan waa ismaqal iyo kala dambeyn iyo ilaalinta sharciga iyo ku dhaqankiisa haddii ay dhacdo marka dawladdu inay ka shaqaynayso boobka hantida qaranka boobka hantida dalka arrintaas waxay taabanaysaa moralka dadka waxayna fogeynaysaa dawladnimada annaga marka wadahadalka marka aan ku jirnay runtii niyad wanaag iyo in wax ka soo baxaan iyo in la isku soo dhawaado dadka maqan in la doono
doorasho loo dhan yahay la qabto arrintaas ee annaga mataqaanaa aad u danaynaynay waxaad ogtihiin intii wada hadallada socdeen 2 bil iyo googo waaye waxaan isku daynay inaan meediyaha aad uga gaabsano si aan macnaha u xoojino wada hadalka waa noo socdaa guddiga wax la saaran laakiin runtii waxaa nasiib darro ah waxyaabaha aan soo sheegnay iyo waxyaabo badan oo kale oo sii fogeynaya nabadda inay dhacayaan maxaa ka mid ah ciidamada dawladda waxaa ogtihiin ayagoo dadaalaya markii dawladda ay ku mashquulshay waxyaabo kale oo ama siyaasad ama dhaqaale ay ku mashquulsay waxay keentay goobihii ay ka dagaalamayeen inay xaji waayaan oo ay uga soo baxaan cadowga taas waxay keentay waxaa la socotiin baryahanba waxaa socda miidiyaha in magaalada muqdisho ay hareeraysanta aan dhahno cadowga ka shaqeeyay laakiin cadowga waagii hore ma sheegi jiray maxay hadda u sheegaan ma isweydiin shabaab oo laga xureeyay magaaladan dhowr iyo 10 sano ka hor in hadda la yiraahdo magaalada muqdisho ku hareeraysan yihiin arrintaasu dawladnimada dhaawac ku tahay shacabka Soomaalida dhaawac ku tahay arrin la aqbali kara ma ah maantana ciidanka jooga waxaa muuqata in la marin habaabiyay oo aan loo adeegsanin wixii loogu talagalay مثلا ciidamada hadda ku dirirayay tarabuunka labadooduba waxay ka tirsan yihiin hal guud ma qaana la socotiin in kale marka kuwana lacag la soo siiyay kiciya la yiri kuwa la kicina waxay dhinama kici kartiin in isdilaan ka dhalato marka ciidankii la rabay hubkooda inay cadowga u jeediyaan marka lacag siiso oo iyagu isdilaan goormay la dagaalamayaan shabaabki sidaas oo kale balad xawa ciidamada la geeyay labaduba waa ciidanka dawladda kuwii ka horeeyay oo la geeyay Ras Kamboni waa nafs shay intaas waxa sii dheer في النهاية هدي له رب doorasho meesha ay ka dhacayso waa magaalada muqdisho iyo gobolada dadka ka shaqeeya ama jooga ama madaxda ka maamul goboleedyada kulligooda dawladdu waxa looga baahan yahay inay si isku mid ah ay u engage garayso oo ula xiriirto oo u soo dhaweyso madaxweynaha qaar waa isku fiican waa ognahay qaaraysan isku fiicneen annaga dadaal waxaan qaadanay qaarka isku fiicnaa inaan niraahdo madaxweynuhu hadiiba doorasho la rabo waa in la isku wada yimaadaa oo doorasho laga wada tashaday oo loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay sidii waagi hore ahaa jirta ay dhacdaa marka waxaan qaadanay mas'uuliyad ah inaan ka dhaadhicino inay haboonta in la sarko anaga aqbaleen maxay naga sugaayeen in maadaama dastuurkii isbedel aan la isku waafaqsaneen oo hareer marsan dastuurka oo dhacay in horta arrintaas anaga meel aan la dhigno dawladda arrintaas ilaa hadda meel ma saara dawladda wada furan tahay laakiin maxaa garab socday waxyaabo sii fogeynaya ragii maxaa kamid ah arrinta aan ka dhawaajiyay balad xaawo waxaa kamid ah arrinta khaatumo ka socota ayaa kamid ah way sii fogeynaysaa ma soo dhaweynayso nin aad biri rabto inaad la fariisato in aad ka shaqeyso hadda wax uu ku sii fogaanayo xigmad kama muuqanaysa meeshaas marka dadkan Soomaaliyeed waa dhabar adeegeen waxaan ognahay duruufaha dalka ka jira gaar ahaan magaalada muqdisho dadka qaar waxa laga yaabaa noloshooda inay fiican tahay biilkooda ay ka badan inay haystaan laakiin kuwa ay dhimanayaan fursadahaasna waxa bixinaya dawladdu waaye dadka Soomaalida waa sameeyay sida aan wada ognahay wada sameeyay marka meeshii la rabo in shacabka loo naxo oo dadka loo naxo in dawladda xoogeeda ay geliso in ay soo saarto dad hantiilayaal dadka kalena ay dan ka gelin runtii arrin culays badan ku keenaysa qarannimada waa